khilaafadii Cabbaasiyiinta way burburtay. Dowladdii Islaamka ee mar baaxadda weyneyd taasoo ku fidsanayd Hindiya ilaa Isbayn hadda way kala jabtay. Isbayn way ka baxday xukunka Cabbaasiyiinta. Masar waxaa la wareegay boqortooyadii Faadimiyada. Xuduudaha waqooyi waxaa gacanta ku haya Salaajiqada. Xitaa qayb ka mid ah dhulka barakeysan iyo Levantiga waxay u lumeen ciidamada Kirishtaanka ah ee Saliibiyiinta. Mideynta Muslimiinta oo idil hal calan hoostiisa waaray hor u tagtay. Laakiin weli maanta waxaynu ugu hadalnaa xilligan si xiiso weyn leh inay tahay meelaha ugu muhiimsan ee isbedelada dhaca taariikhda gudaheeda. Saameynta xilligan weli waxay qaabaysaa fikradda fardafuulka iyo sumcadda dhaqamada hadda ee horumarsan. Filmo ayaa la sameeyey, buugaag ayaa la qoray, majaajiilo iyo geemyaal ayaa la sameeyey. Carruurta ilaa dadka waaweyn, dadku weli way xasuustaan maalmahaas. Xitaa kadib ku dhowaad 800 oo sano, halyeeyadii waagan weli waxay qaabeeyeen siyaasadda juquraafiyeed ee Bariga Dhexe. Waxaana oo idil waxaa sabab u ah shaqada hal nin oo keliya, Salaaxuddiin, ninkii wanaagsanaa. Waxa uu ahaa suldaankii ugu dambeeyey uguna weynaa ee khilaafada Cabbaasiyiinta. Intaa waxaa dheer, waxa uu ahaa suldaankii ugu dambeeyey oo riyo lahaa, kuna dhiiraday inuu ka rumaysiiyo riyadiisa, riyada ciidan islaami ah oo mideysan, riyada dib u soo celinta dhaxalkii luntay iyo sharafkii khilaafada, riyada in Qudus xorowdo, xor ka ahaato Saliibiyiintii wasakhdooda. Si kasta ay ahaato, Salaaxuddiin ma uusan helin guulo degdeg ah sida guulaystayaasha waaweyn ee kale. Wuu isku dayay, wuu fashilmay, wuu ka adkaystay, wuu ka bartay gafafkiisa, wuuna soo noqday asigoo xoog badan. Waxa uu ahaa mid geesi ah, howlkar ah, caqlina badan. Haddana xukunkiisa waxaa ka buuxay dib u dhacyo, khiyaano iyo niyad jabyo. Taasi waa sababta Salaaxuddiin loogu jecel yahay. Isagu ma ahan sidii geesiyaashii khuraafaadidii hore oo awood sare leh, halkii asigu uu ahaa bini aadam leh hilib iyo laf. Waa halyey, sababtuna ma ahan inuu yahay kii la doortay, laakiin inuu ahaa geesi ku filan inuu noqdo mid. Naftiisa ayuu u doortay inuu noqdo midka keliya ah. Intaan kusii dhex tiimbanayna noloshiisa toddobaadyada soo socda, waxaan arkaynaa sida halyeygan loogu qaabeeyay adeega iyo geesinimada. Sanadkii markuu ahaa 1149, inan yar oo 10 jir ah, laguna magacaabo Yuusuf ibn Ayuub ayaa ku cayaaraya daaradda gudihiisa. Si lama filaan ah waxa uu maqlay dhawaaq ka soo yeeraya masaajidka. Suldaanka Zangidiyiinta Nuurudiin Zangid ayaa guul la soo noqday. Dagaal adag oo lala galay Saliibiyiinta ee Edessa degnaa. Hadda Edessa waxay ka tirsan tahay boqortooyada Islaamka ee Zangidiyiinta. Maqalka warkan, dadku waxay buux dhaafiyeen wadooyinka inay guusha raacday darteed. Geesinimada iyo ammaanada Nuurudiin ayaa qof walba afkiisa saaran. Daayarkii Yuusuf ayaa isna kusoo biiray isku soo baxa. Dhacdadaani waxay saameyn weligeed ah ku yeelan doontaa maskaxdiisa da'da yar. La dagaalanka Saliibiyiinta iyo soo celinta sharaftii luntay ee Muslimiinta waxay dejinaysaa jihada noloshiisa. Daayarkii Yuusuf wuu kori ilaa maalin loo aqoonsaday inuu yahay Salaaxuddiin al-Ayuubi. Markii uu 15 jirsaday, Salaaxuddiin waxa uu guuray Dimashq isagii qoyskiisa si uu u dhammaysto waxbarashadiisa. Dimashq markaas waxay ahayd caasimadda boqortooyada Zangidiyiinta. Nuurudiin meesha wax ka maamulo. Salaaxuddiin waxa uu ku biiray madrasad ku taala Dimashq. Madrasadaas xilligaas waxay ahayd dugsi sare oo kale xilligan. Salaaxuddiin waxa uu bilaabay barashada geometriga, aljabrada, juqraafiga iyo weliba Quraanka Kariimka iyo qaybaha kale ee culuumta Islaamka. Isla markaasna waxaa la hoosgeeyay la talinta adeerkiis Asaduddiin Shirkuh. Shirkuh waxa uu ahaa jenaraal hoos imaaday Nuurudiin. Waxa uu ahaa nin dhisan, dagaalyahan dagaalku adkeeyey. Dagaal ayuu ku waayay indhihiisa mid ka mid ah, siyaasna ayuu balaastar u xiran jiray. Tani waxay ka dhigtay muuqaalkiisa mid cajiib ah. Intuu hoos joogay la talinta Shirkuh, Salaaxuddiin waxa uu bilaabay inuu barto taagtikada ciidanka iyo ku dagaalanka seefta. Kadib markuu dhammaystay tababarka, Salaaxuddiin waxa uu ku biiray guutada Shirkuh, isla markaasna galay shaqo ciidan oo caadi ah ee ciidanka Zangidiyiinta. Waxaa la gaaray xilligii Salaaxuddiin uu adeegi lahaa halyeeygiisa carruurnimada ee Nuurudiin ahaa. Dhanka kale, Masar waxaa ka dilaacay loolan adag oo u dhexeeya laba wasiir oo ka tirsan khilaafada Faadimiyada. Faadimiyadu waxay ahayd dowlad Shiici ah, Cabbaasiyiintana waxay ahayd Sunni iyo Shiico. Taariikhiyan, labadan boqortooyo waa kuwo iska soo horjeeda. Si kasta ha ahaatee, aan dib ugu noqono Masar. Labada wasiir ee isku dayay inay qabtaan xukunka dhabta ah ee Masar waxay ahaayeen Sharwaan iyo Dirgam. Sharwaan waxaa Masar ka saaray ninkii ay ishayeen ee Dirgam ahaa.
Sharwan waxa uu caawin weydiistay Nuuraddiin. Sidaas darteed markii lagu jiray 1163 Nuuraddiin waxa uu Masar u diray ciidan ka amar qaata shirku. Salaaxudiin waxa uu isna ku biiray ciidankaas adeerkiisu uu hogaaminayo. Salaaxudiin wax door ah oo la taaban karo ma uusan ciyaarin xilligan, laakiin dhacdooyinka soo socda ayaa noqon doona cashirkiisii ugu horeeyay xeeladaha dagaalka iyo siyaasadaba. Haddaba waxaan eegi doonaa dhacdooyinkan si aan u fahanno marxaladaha uu maray Salaaxudiin al-Ayyubi. Iyadoo la kaashanayo awoodda ciidan ee shirku, Sharwan ayaa dib loogu soo celiyay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Masar. Shirku waxa uu dhigay ciidankiisa meel u dhow Qaahira si uu u taageero xukunka Sharwan, balse waqti intuu socdaba in ciidan Sunni ah uu joogo dhexbartanka boqortooyada Shiicada waxay bilowday khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyo maxkamadda. Sharwan ayaa cadaadis weyn lagu saaray inuu ciidanka Zaydiyiinta ka saaro Masar, balse isaga laftiisa ayaa halkan ku casuumay. Ciidankaas taageeradiisa la'aanteedna ma u suurtagelayso inuu xukunka sii haysto. Sidaas darteed Sharwan waxa uu bilaabay inuu raadsado isbahaysi. Inta u dhaxaysa xuduudda Faadimiyada Masar iyo Zaydiyiinta Syria waxaa jirtay boqortooyo la lahaa Jerusalem, dowlad saliib ah oo hoos tagta xukunka Amalrik. Sharwan waxa uu isbahaysi qarsoodi ah la samaystay Amalrik, waxa uuna qorsheeyay inay ka weeraraan ciidanka Zaydiyiinta labada dhinac. Shirku iyo ciidamadiisa waxay degeen qasri la yiraahdo Bilbays. Waxaa jihada waqooyi bari ka soo weeraray Amalrik, koonfur galbeedna ninkii la oran jiray Sharwan. Khiyaanadan waxay gelisay ciidanka Zaydiyiinta xaalad adag. Ma aysan lahayn awood ku filan si ay u jabiyaan safka Saliibiyiinta oo ay dib ugu laabtaan Suuriya. Sidoo kalena dib uguma noqon karaan Qaahira khiyaanada Sharwan darteed. Isagoon lahayn fursad kale oo ku badbaadiyay ciidankiisa, shirku waxa uu Nuuraddiin ka dalbaday caawinaad. Nuuraddiin waxa uu ka xanaaqay khiyaanadaas, waxa uu ku diray ciidankiisa niyad wanaagsan si ay u caawiyaan Sharwan oo ku nool Masar, laakiin saaxiibkiis ayaa hadda u shirqoolay inay burburiyaan ciidankiisa ayagoo kaashanaya Saliibiyiinta. Sidee Sharwan ugu dhiiran karaa inuu khiyaano Nuuraddiin kalsoonidiisa? Hase ahaatee Nuuraddiin waxa uu ahaa hogaamiye caqli badan, kuma uusan degdegin xaaladda. Hadafkiisa ugu weyn hadda waxa uu ahaa inuu badbaadiyo kan ugu muhiimsan sargaaladiisa iyo ciidankiisa. Ma uusan ogolayn in ciidankiisa ay burburiyaan Saliibiyiinta. Haddii ay taasi ka dhigan tahay inuusan ka argudsanayn khiyaanada Sharwan maanta, ha iska sii ahaato. Waxaa jiri doona waqti dambe oo la dejin doono xisaabaadka. Nuuraddiin ma uusan awoodin inuu u gurmado shirku oo jooga Masar, maadaama ay taasi qaadanayso waqti dheer. Waxa uuna ka baqayay inuu shirku muddo dheer uusan celin karin cadowga. Sidaa awgeed waxa uu degay qorshe uu kaga hortagayo duulaanka Amalrik ee Masar. Nuuraddiin ayaa ururiyay ciidan hubeysan, waxa uuna weerar ku qaaday gobolka la dhahayo Tripoli. Iyada toos ulama xiriirsan dowladdan, laakiin gobolka Tripoli waxa uu ahaa dowlad kale oo saliib ah iyo Amalrik xulafadiisa. Sidaas darteed markuu Nuuraddiin weeraray Tripoli, Amalrik waxa uu ku qasbanaaday inuu weerarka Masar joojiyo una diro qayb ka mid ah ciidankiisa inay daafacaan Tripoli. Tani waxay u furtay shirku daaqad uu ciidamadiisa dib ugu celiyo Syria, ciidankiisana ku badbaadiyo, wuuna ka faa'iidaystay fursaddaas. Sidaas ayayna ku badbaadeen ciidanka Zaydiyiinta. Laakiin Nuuraddiin shirku ma hilmaamin khiyaanada Sharwan. In lala shirqoolo Saliibiyiinta oo laga soo horjeesto walaalaha muslimka ah ma ahan mid ciqaab la'aan ah. Waxay sugayeen inay helaan fursad sax ah. Fursaddaas waxay timid 1168 markuu Amalrik jabiyay isbahaysigii uu la lahaa Masar oo u weeraray Qaahira. Amalrik ayaa had iyo jeer ishiisa ku hayay Masar. Ma aysan ahayn kaliya dhulkiisa in la baalaariyo, laakiin sidoo kale hoontinimada ballaaran ee Masar. Xukunka daciifka ah Sharwan ayaa siiyay fursadda ugu habboon ee uu ku weerari karo. Amalrik waxa uu soo ururiyay ciidankiisa badda, waxa uuna aaday Qaahira isagoo maraya webiga Niil. Masar ma lahayn tabar ay iskaga difaacdo Sharwan xukunkiisa darteed. Sidaa awgeed khaliifkii Faadimiyada al-Cadiid waxa uu Nuuraddiin ka baryay inuu imaado oo badbaadiyo Masar. Tani waxay fursaddii uu Nuuraddiin sugayay. Sanadahan oo dil waxa uu ku sugayay sabar inuu helo dhadhanka macaan ee argoosiga darteed. Ugu dambeynna wuu helay. Haddii ay hadda Masar ciidankooda ku xoreeyaan, waxay helayaan taageerada shacabka Masar si ay xukunka uga tuuraan Sharwan. Waxay kaloo awood weelan doonaan inay ku jabiyaan Saliibiyiinta dagaal kale. Ciidanka Zaydiyiinta uu hogaaminayo shirku waxay soo galeen Egypt iyo Masar. Salaaxudiin ayaa isna ku soo biiray duulaanka, isagoo markaas noqday taliyaha guuto ka tirsan ciidanka. Zaydiyiinta iyo Saliibiyiinta waxay ku kulmeen goob la yiraahdo Al-Baabeen, galbeedna ka xigta Giza oo u dhow xuduudka saxaraha ah ee webiga Niil. Zaydiyiinta ayaa si kas u doorteen faa'iido istiraatiiji darteed, taas oo inoo cadaan doonto intaan ku jirno dagaalka. Waqtigan hadda la joogo, Salaaxudiin waxa uu la wareegay taliska qaybta midig ee ciidanka.
shirkuna waxa uu la wareegay taliska qaybta dhexe. ciidanka saliibiyiinta ayaa tir ahaan ka badnaa, hub ahaanna ka xoog badnaa ciidanka zangidiyiinta. sidaas darteed salaaxudiin iyo shirku waxay bilaabeen inay ka tashtaan xeelad dagaal si ay faa'iidooyinka saliibiyiinta uga dhigaan kuwa aan waxtar lahayn. qorshe aad u caqli badan ayay la yimaadeen oo ah salaaxudiin ayaa iska dhigaya taliyaha qaybta dhexe ee ciidanka, waxauna ka dhigayaa in askartiisa yihiin ciidanka dhexe. shirku ma uusan dhigin dhammaan ciidamadiisa goobta dagaalka, oo qayb ka mid ah waxa uu ku qariyay goodka ku yaala saxaraha. maadaama ay saliibiyiintu aysan ogeyn qorshaha, waxay ciidanka zangidiyiinta dhexe kusoo weerareen awoodooda oo dhan. tani waxay daqiiqadii salaaxudiin dhammaan noloshiisa ciidanimo isku diyaarinaya. hadduusan cadow ku jebin karin xoog, waxa uu ku jebin doonaa xeelad. sidii qorshe ahaa, salaaxudiin waxa uu sameeyey dib u garasho been ah, wuxuuna ku amray ciidankiisa inay dib ugu noqdaan saxaraha. saliibiyiintu waxay ereedeen salaaxudiin, waxayna ku dhaceen dabinkiisa. fardihii cuslaa ee saliibiyiintu waxay faa'iidadu ku lumiyeen dhulka jooga sare ee bacaadka ah. si degdeg ah uma aysan dhaqaaqi karin, halka fardaha fudud ee zangidiyiinta si degdeg ah ugu socon karaan isla goobtaas. halkaa waxaa ku lumay faa'iidadii hore ee saliibiyiinta, safafkoodii ayaa kala daatay. dagaalkuna wuxuu u qaybsamay gabal yaryar, halkii laga rabay weerar dhexe oo aruursan. taasi waxay ahayd fursaddii uu sugayay shirku. waxa uu la soo baxay ciidankiisii keedka ahaa, weerar ayuuna soo qaaday. isla waqtigaasna waxaa dhinaca kale kasoo rogaal celiyey salaaxudiin iyo ciidankiisa. weerar laba dhinac ah ayaa keenay in la burburiyo saliibiyiinta gebi ahaanba. tani waxay ahayd astaantii koowaad ee garaadka hogaamineed ee salaaxudiin. tani waxay ahayd dhadhaminta guushii koowaad ee dagaalanka saliibiyiinta. laga bilaabo hadda, salaaxudiin ma ahaan doono mid banaanka ka taagan dagaalka, ee waxa uu ahaan doonaa door firfircoon. wiilka yar oo ay dhiirigelisay qisooyinka jebinta saliibiyiinta ayaa hadda awood u leh inuu iskiis u jebiyo saliibiyiinta. la soco qeybaha xigo oo aan soo bandhigi doono bilowga maamulka salaaxudiin iyo xirfadiisa ciidan, sidoo kalena si uu noqon lahaa wasiirka weyn ee Masar iyo sidii uu daafici lahaa weerarada saliibiyiinta una xoojin lahaa wadanka Masar. ugu dambeyntiina uu noqon lahaa suldaanka Masar.